waxaan halkan ka yeedhinayaa natiijadii 12 xubnood ee golaha wakiilada gobolka kan ku soo baxay natiijada ku meel gaarka sida xisbiyadu u kala heleen magacyadoodii xisbiga u codoo helay 3 xubnood saddexdooda xubnood waxa ugu horeeya maxamuud xayir ducaale diiriye waxa ku xiga abokor faarax warsame ayaa ku xiga waxa ku xiga axmed jaamac saalax waxa ku xiga axmed jaamac saalax maxamed saddexda xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga ucid ma xisbiga kulmiye waxa ka soo baxay 5 xubnood 5 xubnood ee ka soo baxay magacyadoodu waxay kala yihiin yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon lambarka labaad mukhtaar ibraahim xaashi cilmi lambarka saddexaad salebaan maxamed faarax lambarka afraad mustafa axmed cabdilaahi lambarka shanaad waxa weeye waa axmed xasan cali casoow shanta xubnoodna waxay ka soo baxeen xisbiga kulmiye xisbiga wadani 4 xubnood ee ka soo baxay waxa ugu horeeyay cabdisaaq xaliif axmed guuleed waxa ku xiga axmed muuse jaamac diiriye waxa ku xiga bila cabdi ducaale samatar waxa ku xiga qaasin aadan salebaan cali sidaas ay noogu dhamaatay